maxaa hadda ka soconaya guriga uu magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed go'aan kama dambaysa ayay sidoo kale ay sugayaan ciidamadii ka tirsanaa kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo weerarka ku ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida iyagana waxa ay goordhow ay gaareen guriga madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed haddaba maxay tahay fariinta kama dambaysta way sidaan waxaynu idin wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay macluumaadka sidoo kale xogaha dhameystiran oo naga soo gaaraya agagaarka Miranaayo ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada isdiidan ee xilligan soconaya marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 5 bisha 6 ee Juun ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno amar degdeg ah ayay sugayaan ciidamadii ka tirsanaa kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo dul taagan guriga madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ciidamadan ayaana si weyn loo hubeeyay isla markaana loo diyaariyay goobo kala duwan ayaana sidoo kale ciidamadan laga soo qaaday waxaana la dulgeeyay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Miranaayo oo dhan waxa inta badan ku sugan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya halka markaasi dabaqyada waaweyn ee aagaasi ka agdhow ay dhinaca kale ee markaasi ay joogaan qoryo waaweyn ay saarteen ciidamo markaasi ee daacad ah madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aynu helayno dhinaca kale waxay markaasi ay tilmaamayaan misana intaas ay ku darayaan in dawladda ay markaasi ay qorsheynayso in weerar lagu qaado hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed laakiin laba arrin oo waaweyn ayayna sidoo kale dawladdu ay wili ay ka warsugaysaa xaaladan isla markaana suuragal ma noqon karto in weerar degdeg ah markaasi lagu qaado madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed midda koobaad waxay tahay go'aankii ugu dambeeyay ayaa laga sugayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Maxamuud iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote mas'uuliyiintan ayaa iyaga waxa ay goordhow ay gaareen guriga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa ay sidoo kale haatan kulan degdeg ah ay la leeyihiin madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waxaana sidoo kale ay kala hadlayaan sidii uu ugu soo guuri lahaa aaga Miranaayo isla markaana uu dib ugu laaban lahaa agagaarka xindaabka xalane ee magaalada Muqdisho oo markii hore uu deganaa kulanka hadda soconaya ayaana sidoo kale waxa uu yahay kii ugu dambeeyay waxaana sidoo kale kulamo kale hore u dhacay ay noqdeen kuwa fashil iyo sidoo kale natiijo lan ku soo dhamaaday maadaama madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku adkaystay in uu Sheekh Shariif uu ka soo guuro Miranaayo iyo Cabdilcaziz isla markaana uu dib ugu laabto hoygii hore ugu deganaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida markaasi uu tilmaamay madaxweynihii hore sida uu sheegay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhammaan dhinacyadii la kulmay ayuuna sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu si cad ugu sheegay in aysan marnaba suuragal iyo sidoo kale macquul aysan noqon karin in Sheekh Shariif uu hub iyo sidoo kale ciidamo fara badan uu ku haysto Miranaayo isla markaana halkaas ay u deganaado isagoona sidoo kale shaaciyay in ay arrintan ay ka dhalan karto misana ay ka imaan karto qalqalgelin amni iyo sidoo kale xasilooni darro arrintan ayaana sidoo kale durbaba dadka qaarkood laba arrin ayay ku macneeyeen waxa la leeyahay in muddo 48 saacadood la toogtoogo madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed isla markaana wax ka yar 15 saacadood lagu soo afjaro ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre waxa ay noqon doontaa boog ku taalo beesha Hawiye gaar ahaan Abgaal kuwaas oo ay u muuqato in iyagu isxigsadeen isla markaana in isdilaynin laakiin qabiilada kale ay markaasi u xoogan yihiin arrintan ayaana sidoo kale dadka qaarkood waxay markaasi ku macneeyeen in ay muhiim ay tahay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay Sheekh Shariif si awood ay kaga soo rarto agagaarka Miranaayo ee Muqdisho isla markaana dib loogu celiyo garoonka diyaaradaha ee uu markii hore uu deganaa
madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeeda ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. hadda kulanka soconaya u dhaxeeyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Maxamed Maxamuud, kuwaasoo iyaga u kala dabqaadayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeeda ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. arrintan go'aankeedu waa mid taagan, waana mid daqiiqad kasta markaas la sugayo, waana mid hadda isha markaas lagu wada hayo, oo haddii aynan dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadanin go'aanka ma dambaysa, waxaa sidoo kale markaas suuragal ah in xaaladdu ay noqon doonto in Shariifka mar kale uu bilaabo abaabulka kacdoonna ka dhanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn markaas u ogsoon misana si weyn ugu warhayo arrintan ayaana sidoo kale go'aan kama dambaysa waxa uu markaas ku gaaray in uu si qasab ah halkaas ugu soo raro Shariifka. arrintan ayaana sidoo kale waxa ay markaas muujinaysaa in xaaladda magaalada Muqdisho ay weli ay tahay mid hubaanti la'aan siyaasadeed ah, isla markaana daqiiqad kasto waxa laga cabsi qabaa inuu halkaas uu ka qarxo misana uu ka dhaco dagaal culus oo u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada kale ee daacad u ah madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeeda ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. waxay arrintan markaas muujinaysaa misana ay ka turjumaysaa in dowladdu ay markaas ay qaadato go'aan ah in amniga magaalada Muqdisho wax badan laga bedelo. inkastoo markaas booliiska Soomaaliya ay hanjabaado ay dirayeen, waxaan hanjabaadaasi dadka diraya ku jira ama sidoo kale uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir Macallin Mahdi Cumar Muumin. macalinka ayaana sidoo kale waxaa la tilmaamay misana la shaaciyay in uu sheegay in howlgalkii degmada Howlwadaag gaar ahaan Barmuudo la soo afjaray, isla markaana howlgalka Mirinaayo ee degmada Cabdilcasiis ay saacado kooban gudaheed ay ku soo afjari doonaan misana ay ku soo gabagabin doonaan. waxaa laga warsooyaa go'aanka markaas ay qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya, laakiin halkan wada hadal ama halkan kulan ee hadda u dhaxeeya madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Maxamed Maxamuud iyo taliyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute, dhammaantood waxay sidoo kale markaas u muuqataa go'aankii kama dambaysa in taliyaashan markaas laga sugo. haddii taliyaashan ay go'aan ay markaas ka qaadan waayaan, dowladda waxaa ka go'an misana ujeedadoodu iyo hadafkeedu weyn ee dowladdu ay tahay in la weeraro madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeeda ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, isla markaana gacanta lagu soo dhigo oo la soo jeebeeyo. oo kaliya dowladdu waxay hadda ay sugaysaa kulankan marka uu soo gabagaboobo kadibna haddii Shariifka markaasi uu go'aanadiisa hore uu ku sii adkaysto, dagaal toos ayaana sidoo kale bilaaban doono. Muqdisho ayaana sidoo kale waxaa xilligan ka jira xaalado aad u adag, ciidamo fara badan ayaana sidoo kale wadooyinka Mirinaayo galo, dhammaantood ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabushay. haddaba Muqdisho iyo xaaladeeda iyo waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan isku wadaagi doonaa.